ninkaanu in badan buu qurba joog jiray 16 qurba joog ku maqnaa duu shaqaysanaya inuu ka soo shaqaystay ahayd laakiin doobiile anagu ma naqaano wax anaga oo doobi noqdana ma arag waan ku ceebeynaya waan ku caayayaa aad iyo aad baan uga xumahay gurigiisa iyo ilmihiisa iyo isaga toona inaan arko ma bajecliba sababtuna waa maxay sababtu waxay tahay wax dhaqdhaqaana weliganaba yeelanin anagu suldaamaan ahayn nolol xayaataan ku soo koray sharaf baanu lahayn insi baan lahayn marka wax dad leeyahay dhaqa hadda ka hor maanan arag taas wuu ku ceebaysan waan ku caayayaa waan kaga cararayaa intaan ku soo baxay meesha uu joogayaan geeska mar xagga ay naga mariyaan laynagu arkin meesha shaqaale leedahay dad baa ka shaqeynaya marka ma kaliya inuu isagu leeyahay darteed baad waxaan u sameynaysaa taasaan u sameynayaa dhar buu dhaqayaaba haddii marba la yidhi annaga dawaynoo dhammaatayba kaligeena ma aheesaan reerunahay ruuxa laba madaxa dhulka ku dhuftay kuwii dabaduhu jiray waa soo cabaadayaan hadda waxay ka istaagtay lacagaan u soo diraynaaye waxaanu faraha la galaha ka baxo nin hadda calal dad leeyahay saas ugu foorsaday dadka xanuunsanaya meelaha la geeyay inaan geyno mooyaane jigsiga meelaha dadka xanuunsan la geeyo haatan waxaan la fadhiyaa Hinde Shukri oo Sidiiq xaaskiisa ah isla markaana aan la dhacsanayn sida la sheegay arintan doobiilaha ee Sidiiq ku dhaqaaqay hadaba walaal sideed u aragtaa bal Sidiiq iyo arintan biilkiina uu ka soo saaro waxaan arkaa qof waaran inuu yahay kuma faraxsan xitaa biilka rabo maan ku iri ha iga shaqaynin doobiili wiila qaadan waayo maxaan ku dhahatay waan ka shaqaynayaa maadaama iga qaadan waayo aan kana geey waayo sida qof waalan baan uga samray waan ka waayo maxaan ku dhahayaa toy ka geenaashaha aan baan kula socdaa xitaa dadka qaraabadu markuu dhaho ninkaagu muxuu ka shaqeeyaa waan qariyaa dukaan buu haystaa waan dhaha anoo maxaan ku dhahayaa diidaya inaan dhaho doobiilu ka shaqeeyaa laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin arintani arin wanaagsan inay tahay lacagna laga heli karo taas kuma muuqato miya may ima muuqato aniga xitaa haduu lacag ka helo ima muuqato inuu sharaftiisa ku dirayo bay ila tahay isaga un baa maxaan ku dhahayaa magaciisu raacayaa doobiil un ninka ka shaqeeyaa bal ama ha dhaqa isaga ama una dhaqan soo laga yaabo inuu dharkii xalfuujinaynin un baa leeyahay ninkii doobiilu ka shaqeeya laakiin anigu isba waxaan diidanahay doobiilahaas ka shaqeeya hore wuxuu ka shaqeeyay maaragtay may wax isirkayga xitaa dhagna kuma maqan wax isirkayga ka shaqeeyana ma jiro laakiin armay sababtu tahay sababtaas oo wax isirkaaga ka shaqeeya iyo fikir badan aadan ka haysanin ee hadaad fikir badan ka haysan lahayd aad oran lahayd oo soo shaqeeyo aroorti kale lahayd may oo ma kaleeyeen doobiila maxaan ku dhahayaa ka soo shaqeey ma dhahan xitaa hadaan arko bal hadaba aan weydiino Sidiiq Faarax Haywe arintan uu ku dhaqaaqay dadkiina ay kula culuubeen isaga waxay ku dhaliyay muddo 3 sano ya warshad dharka lagu dhaqo oo ku taala magaalada Daraman ee dalka Norway yaan ka shaqeeyay kullay mashiinadii iyo qalabkii iyo dadweyne naga hormartay bay ahayd laakiin waxaan halka ka soo ogaaday dhardhaqisu inay wax lacag badan tahay mid kale anigu waxaan aaminsanahay sideedaba waxa aniga shaqo iga celin kara waa kaliya inuu yahay xaraan wuxuu haduu xalaal yahay shaqo waa shaqo noocay doonaa noqotay hadda laakiin dhibaatadu waxay ka haysataa xagga qoyskaagii qoys kaliya ma aha reerkii oo dhan bay iga haystaa qabiilkii oo dhan bay iga haystaa hadda waxa socda mooshin qabiilka laga saarayo reerkan ka dhashay yaa socda marka de qolo kale oo inaan ku soo biiro diyaar u aday jirto hay soo sheegto oday de waa hore dhintay oo awowgay ahaa wuxuusan ogeyn hadaan anigu fahmo oo nacfi kala soo baxo de isagu saas muuse yeeli jirin anigu inaan uga leexdo ma aduu ugu yaraan waxba kaama gelin waxa qoyska ma uu sheegayo anigu go'aankaygu wuu cad yahay ummadoo dhan haday iga hortimaado go'aan gaaro anigu go'aankaygu waan wadanayaa